mabdiyan waxaan isku raacsannahay in laba qof kasta ay guur dhex maro ee heli doonaan hadiyadii Rabbi ee ahayd jacayl iyo naxariis wajacala baynakum mawaddatan wa rahma. ha hadeen kuwa guurka ka hor isbartay ama kuwa guurkoon isku arkay ha yeeshee dhir haddii la beero dhulka lagu tallaaloon biyaha dhulka loo darin loo qiyaasin dhoobada ma dheeraado xididkoo laama dhubac u yeeliyo ubax wada dhalaaliyo dhaameel ma bixiso dhali maysa miro wacan. jaceylka dhigiiso dhaqaalaha u baahan waa in leesla dhowraa haddii kaleeta lagu dhimay. haddaba buugga u horeeya ee barnaamijka Dhadhamis waxaanu ku baran doonaa sidaan u dhowran lahayn jaceylka hibada ah una kubcin lahayn. Dhadhamis waa barnaamij hadafkiisu yahay soo dhaweynta dhigaalka iyo dhiirigelinta dhalinta, waxaana soo gudbintiisa ka qayb qaatay shirkadda xawaalada Hami Express. barnaamijka waxaa kusoo gudbin doonaa miidda murtida ku jirta hadba buuggii aan u aragno inuu xambaarsan yahay macno iyo maandhis. haddaba si ay kuu soo gaarto xalqad kasta ee cusub fadlan subscribe dheh channelka lana wadaag saaxiibada. Assalaamu calaykum, anigu waa Abaaloo sugu barnaamijkan waa Dhadhamis. buuggu horeeya aan barnaamijka kusoo qaadanayno waa The Five Love Language ama shanta luuqad ee jacaylka. buugga waxaa qoray qoraa in ka badan 30 sano kusoo jiray arrimaha xalinta khilaafaadka qoyska iyo la talintooda, Dr. Gary Chapman. buugga nusqadiisa Ingiriiska waxaa laga iibiyay taqriiban 8 milyan oo nusqo. sidoo kale waxaa loo tarjumay in ka badan 35 luuqadood. dadkii aqriya buugga waxay ku tilmaameen inuu yahay mid soo celinaya jawi, mid abuuraya jawi romansi soona celinaya noloshii bishii malabka. buugga wuxuu sabab u noqday sidoo kale badbaadada qoysas badan oo qarka u saarnaa inay burburaan. fikradda buugga ayaa waxa ay ku qotontaa in insaanku leeyahay taangi ama qasad jaceylka keedisa, taasoo ay lama huraan tahay in laga warqabo. si la mid ah sida uu baabuurka u leeyahay qasad, yacni taangi lagu keediyo shidaalka, haddii uu baabuurka shidaal waayana uusan u socon karin, ayuu insaanka haddii uu waayo jacayl ay adag tahay inay hagaagto baahidiisa caatifadeed. waxaana la sheegaa in insaanka uu baahi u qabo rootiga iyo biyaha kadib inuu ogaado in la jecel yahay. sidaa aaweed buugga kama baranayno sidaan isku jeclaan lahayn, ha yeeshee waxaanu ka baranaynaa sidaan isugu cabiri lahayn jaceylka qotada dheer ee aan isku qabno. maxaa yeelay waxaan hore usoo sheegnay in lamaano kasta ay isguursada ay helayaan hadiyadii Rabbi ay ahayd jacayl iyo naxariis. qoraaga waxa uu kala qaadayaa jacaylka laba nooc. nooca ay Soomaalida u taqaano ka helidda, cilmiina loo yaqaano limerence, ee aan ku imaan doorashada iyo ikhtiyaariga, iyo nooc ku yimaada doorasho iyo ikhtiyaar oo u baahan inay u bareeraan ay doortaan lamaanaha isqaba. sida ay sheegayso Dr. Dorothy Tenoff oo ah aqoon-yahanada cilmi nafsiga ku xeel dheer, waxa ay leedahay jacaylka ka helidda ah cimrigiisa u badan waa 2 sano, oo 2 sano kadib qoysaska waxaa daruuri ah inay doortaan jacaylka ikhtiyaariga ah ee ku dhisan ixtiraamka iyo xuquuqda. haddaba buugga waxa uu qabaadhigayaa si fiican uga hadlayaa sida aan u dooran lahayn jacaylka ku yimaada doorashada iyo ikhtiyaarka. waxaa la yidhahdaa jacaylka laabta ku jira waxa uu la mid yahay barafuun dhalla ku jira, kaasoo haddii aan la buufin ay adag tahay in la dareemo caraftiisa. sidaas la mid ah jacaylka haddii aan laysu sheegin oo aan lays ogeysiin way adag tahay inuu miro dhalo macnana soo kordhiyo. qoraaga waxa uu leeyahay waxaa jira 5 luuqad oo jacaylka bini'aadanka ay isugu cabiraan. 5 luuqadna waxa ay leeyihiin lahjado kala duwan sida luuqadaha caalamka ay u leeyihiin lahjado kala duwan. qoraaga waxa uu leeyahay haddii tusaale ahaan aad adigu ku hadla English u safartay Chinaha oo aad isku dayday in qof Chinese asal ah kula hadashid luuqadda Englishka, way adag tahay inuu ku fahmo. sidaas la mid ah waxaa suurtagal ah in lamaanahaaga nolosha uu u dareemo ama ku fahmo jacaylka luuqad ka duwan midda adiga jacaylka ku dareentid. waxaa lama huraan inaad idqaanisid oo aad baratid, fahantidna qaabka uu lamaanahaaga jacaylka u fahmo, kadibna aad si xirfadeysan ugula hadashid. luuqadda koowaad ee jacaylka ayaa ah imaqashii. in badan oo kamid ah dadka ayaa jacaylka ku dareema ereyada loo adeegsado, oo halkuu lahaa subhanahu calayhi salaatu wasalaam xadiis macnihiisu yahay haddii uu midkiin jeclaado walaalkii ha ogeysiiyo jacaylka. xaqan afka wuxuu la xoog yahay magliga xowda kaa jara, oo ereyada waxa ay sameeyaan macno aad u weyn, qalbiga insaankana qaab cajiib ah ayay ugu gudbaan. qoraaga waxa uu leeyahay luuqadda imaqashii waxa ay leedahay dhowr lahjad oo kala duwan, waxaana u caansan dhiirigelinta, ammaanta iyo ereyada dabacsan. tusaale ahaan xaaskaaga markay qadada kuu keento waxaa ku oran kartaa xabiibi waxaa hubaala inaad tahay kariso wacan, waxaan aad ugu faraxsanahay inaad tahay xaaskayga, Rabbi ayaana ku mahdiyaa inaan ahay soojkaaga.
iyo ereyo lamida dabcan sidoo kale ereyada dabacsan oo ah kuwa muhiim u ah nolosha iyo habsami u socodka jaceylka ayaa waxa yani muhiima in markasta lamaanaha ay isku adeegsadaan goob kasta iyo goor kasta dabcan. ereyada waa kuwa aan u baahnayn in la isku sharxo sida waa ku jeclahay, waa ku xiisay iyo kuwa la hadla. luqadda labaad ee jaceylka ayaa ah yani hadiyad isi ama hadiyad wadaaga. qaar badan oo kamid ah dadka ayaana jaceylka u aqoon hadalka dabcan. waxaa suurtagal in xaaskaaga ku tiraahdo markaad tiraahdo waa ku jeclahay, jaceylka hadal maahan ee waa ficil. macnaheeda ma ahan inaysan rabin in la yiraahdo waa ku jeclahay, ha yeeshee luqadda aas-aaska agteeda ah ayaa waxay tahay in hadiyad la siiyo. oo waxaa suurtagal ah haddii aad usoo iibisid ubax shilimaad jooga inay dareento jaceyl ka weyn jaceylka haddii aad maanta geeraar u tirisid maanta oo idil. hadiyaduna ma aha inay joogto inay muhiim tahay in qiimo badan laga soo bixiyo oo waxaa la yiraahdaa hadiyada kam qiimo kuma lahan, ha yeeshee kayf ayay macno ku leedahay. oo ubax basida usoo iibisid ayaa xaaskaaga ama lamaanahaaga dareensii kara jaceyl aada u weyn oo yani kama fakirayso qiimaha uu joogo ubaxa, laakiin waxaa laabteeda kusoo dhacaya markaa hadiyad yar u keentid inaad ahayd goorta hadiyada soo iibinaysa mid ka fakira. hadiyadana waxa ay ka turjuntaa oo keliya inaad ihtimaam u haysid iyo ixtiraam kana fakirtid markaa ka maqan tahay dabcan. luqadda ayaa ah luqad yani inta badan dadka ay jaceyl ku dareemaan, waana halkuu lahaa sidoo kale nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiis macnihiisu yahay isu hadiyeeya as jeclaataani tahaaduu taxaabu oo kama qala. sidaa awgeed luqadan rag iyo dumarba waa inay si isla mid ah ugu hadlaan si qasnada jaceyl ee lamaanahooda ay u ahaatay mid markastaahi buuxda. luqad saddexaad ee jaceylka ayaa qoraagu waxa uu ku sheegayaa quality time ama waqti isii. luqadan ayaa dadka ku fahma jaceylka waxay u baahan yihiin in waqti barax lala qaato. lahjada u muhiimsan ee qoraagu sheegaya ayaa waxay tahay la joogis. la joogis ma aha macnaheeda in jirkaagu uun la joogo, balse waa inaad kaamil intibaahaga aad siin kartaa lamaanahaaga xilliga aad la joogtid. tusaale ahaan sida aad luqadan u itqaanisid qaab xirfadaysanna aad ugu hadashid, waxaad samayn kartaa in lamaanahaaga habeen kasta 30 daqiiqo oo keliya aad la fariistid saaloonka, kadibna aad uga sheekaysid maalintaada kana wareystid maalinteeda. dabcan 30 daqiiqo ayaa kusoo kordhin kartaa laabta lamaanahaaga macno aada u weyn. sidoo kale lahjadaha luqadan ayaa waxaa kamid a in si wadajir ah activities ama howl loo qabto, sida inaad buug isla wada akhrisaan ama muxaadaro isla daawataan, axyaanan inaad isla safartaan iyo waxyaabo lamid a. sidaa awgeed luqadan ayaa u muhiima lamaanaha haddii aad qofka uu awoodo inuu si itqaana ula hadlo. guud ahaan luqadaha shanta ee jaceylka isguud, haddii kale waa inuu bartaa lamaanihiisa luqada ay sida gaarka ugu hadasho ama ugu hadlo, kadibna uu naftiisa ku qasba inuu luqada ku dareensiiyo jaceylka. luqadda afraad ee jaceylka ayaa qoraaga waxa uu ku sheegayaa icaawi. luqadan oo ah luqad aada muhiim u ah ayaa waxaa moodaa inay tahay midda ugu badan ay ka cawdaan gabdhaha Soomaaliyeed ama raggeena ay aada uga gaabiyaan. yacni tusaale ahaan haddii gabadhaada ama lamaanahaaga jaceylka ku fahanto inaad howsha guriga ka caawisid, maxaa diidaya inaad ka caawisid oo aad ugu muujisid jaceylka, maadaama yani ka warqabka jaceylkeeda iyo qalbigeeda ay ka mid tahay mas-uuliyadda kaa saaran yani gurigaaga. muhiim ma aha in guriga marka aad gabadhaada kala shaqeynaysa ee howl badan ay taalo. muhiim ma aha, maxaa yeelay gabadha waxay qabtaa sida uu sheegayo qoraaga baahi caadifi ah. yacni baahi caadifi ah taasoo xitaa haddii aad sariirta uun caawa ka gogashid ay dareemayso jaceyl weyn, maadaama sariir la gogolaa aysan culays iyada ku hayn, ha yeeshee inaad adiga howshaa ka qabato waxay dareensiinaysaa inaad yani tixigelisay, inaad jeceshahay, inaad tahay ninay ku tiirsan karto oo markasta garab taagan oo caawiya. tusaale ahaan u fiirso siirada nabiga calayhi salaatu wasalaam. caaisha waxay leedahay nabigu wuxuu ahaa mid u qidmeeya reerkiisa. hadda ogow cilmiyan guriga caaisho, qolka caaisho wuxuu ahaa 2 ilaa 3 mitir oo ma oolin howl weyn oo laga qabto, laakiin waxaa meesha muuqata inay jirto baahi caadifadeed ee gabadha u qabto in ninkeeda uu caawiyo markastana garab istaago. sidaa awgeed haddii aad tahay yani haddii ay lamaanahaaga markasta ka cabato inaad howsha guriga ka caawisid iyo inaad yani ku fiirsatid yani howlaha guriga, ogow inay tahay luqad muhiima ay ku fahanto jaceylka. iskuna day inaad luqada kula hadashid xitaa haddii ka hor imaanaysa dabeecadaada, ku qasab naftaada maadaama lamaanahaagu uu ku fahmaya jaceylka luqada. luqadda shanaad ee jaceylka ayaa qoraagu wuxuu ku sheegayaa taaba jirkeyga, oo waxa uu leeyahay qoraaga jirka aadanaha waxaa loo abuuray taabashada iyo salaaxida.
oo dadka qaar ayaa quluubtooda loo maraa jirkooda. luuqadan oo muhiima waxaanu ka fahmi karnaa in jirkeennu isgaaro inay muhiim u tahay habsami u socodka jacaylkeena. ma aha gabadha inay ka xishooto inay gacanta qabsato ninkeeda, soojkuna ma aha inuu la sugo habsiinta iyo dhunkashada xaaskiisa gogasha oo faraka ciyaarku ceeb ma aha markii reer la yahay. luuqadan oo lahjado kala duwan leh ahna mid xasaasi ah, waxaan ku talin in qofkii u suurtageli karta inuu akhriyo oo ugu laabto buugga. ha yeeshee inta aan diyaarinayay xalqadan ayaa waxaan arkay qiso ka dhacday Kuwait. qisadaasoo odhanaysa ustaad yaasir al-xuseymi waxa uu leeyahay waxaa gubtay guri ku yaala Kuwait. guriga kadib markuu guriga gubtay ayaa soojkii wuxuu gacanta qabsaday xaaskiisa si uu uga badbaadiyay dabka, wuuna la cararay. ha yeeshee wuxuu la yaabay markuu arkay in gabadhi ay isku darays ooyin iyo qosol, marna way oysaa marna way qosashaa. markay ka fogaadeen dabkii ayuu wuxuu ku yiri maalaki tabkiini wa tadxakiini fi nafsi alwaqti, maxaa kugu dhacay, waa ooyeysaa haddana waa qoslaysaa isla markaaba. waxay ku tiri ya abu fulan laazim yaxtariq beetna calashaan tamsig yadi, abu hebelow ma waxa qasaba in gurigeena gubto si aad gacanteeda u qabsatid. u fiirso gabadha baahida ay u qabtay inuu zoojkeeda kula hadlo luuqada ay jacaylka ku fahanto oo ah taaba jirkeyga. sidaa awgeed in badan dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan kula talinayaa in luuqada ay horumariyaan, aysan ka ilduufin, ogaadaana inay muhiim u tahay nolosha guriga. ugu dambeyn qoraagu waxa uu leeyahay jacaylka waa doorasho, wiilow ama gabarey bara luuqada uu lamaanahaaga ku fahmo jacaylka, kadibna dooro inaad kula hadashid qaab xirfadaysan xitaa haddii ay ka hor imaanayso rabitaanka naftaada. maxaa yeelay ilaalinta dareenka lamaanahaaga waxa ay ka mid tahay mas-uuliyadda kaa saaran gurigaaga. ogowna in jacaylku uusan ahayn inaad heshid wax walba ee u baahan tahay, waa inaad heshaa qof aad dartii u samayn kartid wax kasta.